محمد حسن محمد وحالو محكمة دينيا مركيسي لبا دل وجيستي رضوان إبراهيم عبد الله ميل بيتو من كيدي سنة كان مداش المحكمة دينيا يعني عيدا لوسي فرصة يكو قيحان رفعان كودا وكان جنرال ليبان علي يرو قدوميها محكمة دسرية عيدا مدى غلب كسيدا محكمة درجة كواد عيدا مدى غلب كسيدا ايا قال كان هوري وغسو صارتي حكم كاس او اها مك اما ديو xiriiraarinta ciidamada qalabka sida ayaa abiilka ama rafcaanka ka soo qaadatay iyadoo ka andacoonayso inaysan ku qanacsaneen xukunka laga soo saaray galkan marka xiriiraarinta ayaan ku bilaaweynaa waxaan leenahay soo jeediya asbaabta aad abiilka soo qaadateen soo dhaw dhinacyada dacwadda ayaa jeedinta maxkamadda kadib qaatay doorkooda waxa uuna dhinac kasta ay dul dhigay qodobada uu ku xoojinayo doodiisa mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan mar labaad ugu mahadcelinayaa in naga aqbashay racfaanka waxaana jeclahay inaan aqriyo asbaabta racfaanka inaan soo qaatay igu kaliftay ka xafiis ahaan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa jira 4 markhaati oo aan horgeeyay maxkamadda darajada koowaad tookadii hore oo ay lid ku ahaayeen xukun sane xidig la xooga maxamed xasan maxamed kaas oo fal dil ah oo bastoolad uu ka riday u geystay marxuum ekis xidig la xooga ridwaan ibraahim cabdullaahi taas oo u geeriyooday mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh 4 sargaal oo 3 ay ka tirsan yihiin ciidanka badda midna uu yahay sargaal booliis ah oo goob kula wada sugnaa marxuumka iyo eedeysanaha waxay si waadaxa oo sida dayaxii oo kale ay u cadeeyeen 3 kamid ah in maxamed xidig la xooga maxamed xasan maxamed uu si kasa oo la kaca uu dilkaas u geystay isagoo ku geystay bastoolad iyadoo aan ognahay in sargaalka dilka geystay uu soo maray tababaro adag oo la xiriira militariga akademiyadda militariga aysan sahlanayn inuu si kama ama oo sahlan ay uga fakato xabad ama uu ku ciyaaro maragadii joogay xilligii dhacdadan oo ahaa saaxiibo shaqo wadaag la ah eedeysanaha iyo marxuumka ayaa shakhsiyadda eedeysanaha iyo dhaqankiisa falaadka ahaa garsoorka ka hor sheegay waxayna qirayaan in xitaa marxuumka uu uga dhawaa iyaga oo ay isku tababar iyo ceesho milix ahaayeen eedeysana maxamed xasan maxamed iyo marxuum ridwaan ibraahim cabdullaahi ayaa isku darajo ka gaaray ciidanka xoogga dalka xidiglayaal mudane gudoomiye 12 bishii shanaad galab 8 saac iyo bar maray ku dhowdahay amal waxaan ka soo baxay dekada shaqadeedii ahayd waxaan soo aaday gurigeyga oo goobta dilka ka dhacay u dhow markii nin oo saaxiibanaho sargaalnaba sugida ajagboontiga toogashada ku yaalo awal aan ku balansaneen diirad yar oo bistoolad loogu xiraayo oo ku xirideedii maxamed xasan oo ogaayo yiri ninka nabasugida niyo laflaa ku xiri karo oo ninkii bistooladii ii soo taago wuxuu yiri niyo bistooladii diiradii igu xir marka waxaan ku yiri diiradii waa tan waa ku keenay laakiin sa niyo baashan ilkii ay bistooladu ku qabsan lahayd malahan oo ma ku xirmayso markii dambe waxaan isku garanay inuu bistooladaydi iga qaato mid biljino yara anigu wato todoba qaada taydu iga qaatay tan intaydi wuxuu yiri niyo MJ yarka maxamed xasan allaha bal iigu yara geeyo bal hadii ku xirmayso ragaas iigu geeyo sidii aan u soo qaaday bistooladii taydaana ku soo wareejiyay markaan isdhaafsanayna marka waxaan isdhaanay ani bistooladayda amaan ay lahayd tanna amaan ma lahayn marka waxaan ku yiri bistooladayda xabada ku jirtay ogow asagana wuxuu ugu yiri xabad kuma jirtay ogow saasa ku soo kala qaadanay oo xaqiiqa oo runo ilaahayna marqaati iiga yar waa soo tagi markaa waxaan soo aaday goobtii ay joogeen 3 nin oo marqaatiyaasha kamida iyo ninkii marxuumka ilaahay u naxariisto iyo MJ waa soo fariistay war waxa irin niman yahow bistoolada ninkii qorti ii geliseen ay dhahdeen waxbay ku xirmay waata kuma xirmaysay ila arka MJ wuu fiiriyay ridwaan uu dhiibay ridwaan waa fiiriyay ilaahay u naxariistay asagana wuxuu yiri niyow bahashan ilkee ku qabsan lahayd ma lahoy xaaladaas bistoolada la warwareejinaayo qasnada waa ka saara anay qasnada waxay agtaala Ahmed agtiisa Ahmed meel naga soo horjeedo marka fadhiya roogay saas uu tuuran tahay bas bistooladii bilaa qasnada
oo MJ hortiisa dhigtay markii uu dambeeyay Ridwaan ay ka soo laabatay MJ hortiisa ay degtay meeshii cabaar taalay Axmed oo mas'uul inuu ka yimid u maleynaa wuxuu yiri niyo qasnada ay bistoolada ay kala lumine hal isgiliyo xaqiigu qasnada u soo taariixiyay waa ka soo qabtay MJ asaan uu dhiibay uu galshay qasnadii dhulku iska dhigay wax yara ka soo wareegatay marxuumkii yaa kacay mas'uul iyo taleefan wuxuu ku hadlaayay waa soo noqday wuu soo noqday fadhiga markuu u sii raacsamay ani markii waxaan ka fadhiyaa MJ jilibkiisa iyo jilibkeyga is saaran aniga iyo marxuumka iyo MJ cid iska keena dhow ma jirto ninka kale marqaatiga oo marxuumka geeska ka jirana taleefan cod uu dhageysana saan u sii jiifaa asaga Axmedna waa naga soo horjeedaayo caadi inuu arki kara afweynin Allah ya jiro asagana wasiyo yaro mashquulsanay marka ninka markuu fadhiga sii raacsamay wuxuu yiri MJ iga sakniyo waa ku dhibsaday markaasuu ninka wuxuu yiri aan maay dhibsatay tala bistoolada uu soo qaaday inuu raaciyo iyo wareejin xabadku saan uga riixay markaasuu bug sii baashay waa qaadid raacin iyo wareejin markuu xabadii bab ay tiro MJ kor u taagay wuxuu yiri wariyaa qasnadii ii galiyay bistoolada يا حبت إيرائي معها يا قسند بستولة دي إيجليو ماشي بستولة دو كتوري وكعي بناكو آذي أحمد يعني واكد بكعني وركالي نيك داو وحقاد داني ونقا أقبلي داو إيجرقارو لفي دي قارقي والله راعي وحولا آذي يردميلي باشا قسند ولا قصاري ولا راعي ولا سكو ديبي حي تانيك قعنتي دا ويسوق الشي لبا تشيربان دشك سينتين الباب كوتشيدي أفوينا حويني إربط كذي خوش بين نك له وقوق له وكما قرب حسيدي وين سكدي بي أنا جالسان وقاتي نكون نفرق عيار بدن بوها فرق عيار كمان وقاتي أنا تاي والصورة وقياسي أنا قصدي إنسان كحرنا إنسان أنا أركتي تاي يا ويا دور ردواني نكان دجال كمان دحين أنا واسقون بالبدو سيقانين اسكو كليات بكسب بحين لبض حافظ مدة دوام بكعشرين ترين وهو سعين ترين ما دام أنا كانوا فرق عيار بدنا بستولة يقولي إسكو فوق ترين بستولة دنا وكوع عن وساس لي قصد لكين التالي مركن نك حبض كل عام أرجو وكل واقعها أصلا كعين بمارت وبوتين تبودي يا قصد ده يجري بستولة ده أنا هو حانو قاطي وحيو أرجو ترى إلهي بأو لكن إلهي فرق عيار نكاس وقبي أنا بستولة ده حبض يسوي كتيرين وقصد كوعرين معنا وأنا قرأت قياس هان أنا عندي واحد قبتين قسند أيضا بكو حرنين بس كولد بأنده مركي ورا قبتين وسد حنين سكولي ديفت وح على وضع أن كوجين وكده حين أنا ما أنا أوجين قلبي جزر إلهي كورغبه لكن أنت أنا كنا قان لبضنين وكان نك أسمعلك ونك أنت كل عيس أنا أسأل ثالث كلول كأنه جونون صوّع أنا يصوّع يدي بوير أنا أديب وصوّر قدر حتى مرحوم كنا كنا عنين يا وأنا عنين مرحوم كنا كان مدن قدامي أنا وحنا وشيء وعنده كربال كبس قالت كل عيسو وما شيء لكن إن كان صار دعي ولا شهادنا هاي با عنده قوت كل عيس حقيقة تاسوي هرنا وأشياء محكمة دي هرنا وأشياء تنسى إلهي قد كان كل جيب قلا غفل قل معي لابد إنه ويس مين ولا له بقى يعني وسير جدا ودقنا maxamuud saciid ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ka codsaday maxkamadda in loo ciqaabo eedeysanaha dembigii uu ku geystay fudadkiisa saraakiil waxay ahaayeen tababar qiimo aad u sareeya qabaan oo ku soo tababartay xerada tababarka xoogga dalka Turkigu naga saacideen Turkison oo aan ognahay inay soo qaateen 2 sano ku dhawaad oo tababar ah oo isugu jira hubka fudud iyo hubka culus iyo aqoontii oo isugu jirta waliba yaani galaas intaas oo dhanba way soo qaateen juhdiya la galiyay Turkiya hadana la geeyay Sparta oo lagu soo tababaray oo lagu soo baray hubka fudud iyo furfuridiisa iyo xirxiridiisa iska badaa bistoolad oo ah agabka ugu yar oo hubka oo ay isticmaalaan saraakiisha iyo ciidamada madana gudoomiye baskoolada sida uga jeedaan way cusub tahay baskoolad cusub waay iyadoo cusubna waxa fududaanaysa qaabka loo raacinayo inay aan la maqlin macne maadaama baashay aad cusub tahay ay tahay bastoolad cusub sidoo kalena dhammaan maraga waxay sheegeen
in bastoolada la wada hubiyey markii hore oo dhanba kulligood dhammaan maragyadii xafiiska maxkamadda maxdarka horkeeda taagnaana ay caddeeyeen in eedaysana xidigle xoogga maxamed xasan maxamed uu ahaay caadayste oo ku faraka cayaara hubka kuna fiiqa asxaabtiisa shaqo wadaagta ilaahay saaxiibadiisa oo isla dhacdadaas uu dilka ku geystay wax yar ka hor daqiiqad ka hor uu ku qabtay xidigle xoogga axmed yare oo saaxiibkiisa ahaa halkaasoo uu ku canaantay sargaalkii ugu darajada weynaa oo meesha kula sugnaa qolka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedaysane xidigle xoogga maxamed xasan maxamed isla markii uu dilkaas geystay goobta inuu ka fakado ayuu isku day uu sameeyey inuu fakado isku dayey oo ka cararo goobta laakiin kama aysan yeelin saraakiishii ag joogay qaab ka xeeladaysan ay ku soo qabtaanba way soo qabteen wayna ka dhaadhiciyeen inuusan fakan mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh sargaalka dhintay sargaal qiimo badan uu ahaa oo ku jira saraakiishii da'yarta oo jaamiciyiinta oo ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyay juhdi badanna la geliyay waxbarashadooda taas bedelkeeda uu fududaystay saaxiibkiis uuna caadaystay inuu baskoolad oo aan ognahay inuu ay si fudud wax u disho aan lagu faraka cayaarin raggaan aysan ahayn rag shacaba ama rag askar lagu meeleeyay aan askarta ama yani aysan ahayn ay ahaayeen saraakiil aqoon-yahano ahaa cilmi maadiyana ka dhisnaa aqoonta askariga ahaydna loogu daray oo kulliyad saraakiil ay ka soo baxeen marka waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh inay aydo codsigayga ah inay ku qaado qodobadii aan ku soo eedaynay eedaysanaha qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aayadda 178 suuratul baqara maxkamadda sharafta waa maasanta qareenada u doodaya eedaysanaha ayaa codsaday in maxkamadda ay tixgeliso cadeymo ay kow yihiin maragyada maxkamadda hortaagan makhaatiyadii meeshan ka marakacay dhammaantood waxay caddaynayaan inuusan dilku kas ahayn dilkaas waa la yaqaanaa elementiska ama arkaanta uu leeyahay wuxuu leeyahay inuu ka weerso qofka aad dagaal idinka dhexeeyeen oo kale waa inaad u qasidaa wax dilay u soo qaadataa cilladii iyo problemkiina la xallin waayo markaa ka bacdi aad go'aan ka gaadhay inaad dishid qofkaas laakiin dad saaxiibo ah friends ah hal meel ku qadaynayo hal meel ku shakeysanayo isku team ah laakiin falka ka dhacay sababta inuu dhinto marxuumka lama dhigi karo waa kas iyo waa ku talagal qodobka 434 meesha uu ka baxayaa marka qodobo kale oo xeereed oo qabo lacalaba hadduu dil dhaco wuxuu noqdaa camdi shubul camdi khada marka khada iyo shubul camdi buu soo gelayaa kaska meesha way ka baxaysaa bal la suuraysan karo biskoolada meesha la keenay iyo diiraddan la wada iyo barnaamijkan iyo asaga biskoolada ma lahayn gariirka ama baasha lagu xidhaayo ma lahayn biskooladiisa meel buu iska soo dhigay dhir carabi uu soo xidhay inuu xataa shaqo qabto qaran ma ribin waa xilliga nasiinyada biskooladan meesha la dhex keenay la garan laayay ciddii raacisay ciddii khasnada gelisay waxaa laga maxkamaddu waxay ka maqnaateen maqnaatiyadoo dhan khasnada inaysan ku jirin marka xeerlaalintu waxaa rabay inuu doorkiisa caddeeyo 114 cidda biskoolada khasnada gelisay iyo cidda raacisayba qofkaasa marka mas-uuliyad ka qaadi lahaa faldamiyeed ka dhacay mas-uuliyadda waxaa qaadi lahaa qofka biskoolada raaciyey iyo qofka khasnada geliyey laakiin waa uu ku tijaabiyey waa dilay kas buu dilay suurtagal ma sidoo kale markhaatiyada waxay ka markhaati kaceen qayb ka mida inuu eedaysanaha soo qaaday isbitaal la keenay ilaa uu ilaahay ka oofsado marxuumka sidoo kale markhaatiyada qayb ka mida waxay sheegeen weli aan u maleynayo maxamed yaasiin inay eedaysanaha iyo abuukarkii biskoolada keenay inay carreen markay dhacday
adeegsanaha lagu samaysamay askariga saaxiibka waa sax dhacday baa weyn in la cararo waa duruufta keenayso lagu samaysamay saaxiibka yuu ahaa gacanta kaaga fakatay aan isla qaadno wala qaaday may ninki kala saa darteed qodobka 20aad iyo qodobka 23aad ee xeerka ciqaabta maxkamaddu inay nala aragtaan rajeynaya qofka falka uu geysto hadduusan asaga rabitaankiisa iyo ka go'itaankiisa aysan ku imaanin xataa looma ciqaabayo xeerka qabo aayadaha quraanka ay soo qaateen xafiiska xeeraalintu aayadda 178 oo suuratu baqara 45 suuratu maa'ida aayadahaas waxay ka warramayaan qofka qof dilo in la dilo laakiin goorma markuu bareer cad qofka uu dilo bareer cad uma dilin qorshihiisana uguma jirin saaxiib bay ahaayeen hal meel bay ka wada shaqaynayeen hal meel bay ku soo tababarteen dad noocaas ah oo xataa qorshaha ugu jirin oo bal asaga u dhahay dharka iska soo siib inuu dilo ma ahayn hase yeeshee tii rabbi baa ku timid gacantiisa sababteed marka waxaa leeyahay cuntada lagu sumoobay oo lagu dhinto iyo ma cuntada dambiga leh mise qofkii soo sumeeyaa dambiga leh qofka soo sumeeyaa dambiga leh maadaama uu yiri baskoolada qasnada yaa ii geliyay maadaama oo baskoolada asaga lahayn maadaama ay saaxiibo ahaayeen maadaama aysan wax cadaawad ay ka dhaxeenin waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaynaa in ay codsiga xafiiska xeer ilaaliyaha in aysan aqbalin maxkamadda waxaan ka codsanaynaa codsiga xafiiska xeer ilaaliyaha anigoo ayidahaya qaraankii iga horeeyay inay gebi ahaan diido codsiga labaad aan codsanayno magtii ay ku xukuntay maxkamaddii horena inay si gooniya u fiiriso oo ay qiimayso caddaymaha maxkamadda la hor keenay maxkamadduna way mahadsan tahay maxkamadda waxaa ka codsanay waa dilkan ma aanan u geysan si bareer ah ama kas ah waa qof walaalkayga oo muslimoona buu ahaa oo aan kuliyad ka soo wada baxnay haddana aad baan uga xumaaday oo waxbaa iiga fakaday ku talagal uma aana geysan falkaas maxkamaddana aad ay u mahadsantaa jenaraal liibaan cali yar oo guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed oo ay maxkamadda waqti ku filan siisay maxkamaddii ama galkii oo maanta aan xeer ilaalinta cidda soo jeedaysa abukaatayaashan ay difaacdeen halkan ayuu ku gebagabaysan yahay wixii go-aanna maxkamadda ayaa dib ka soo saari doonto bilahi towfiiq cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho